ogeysiis shirkadda Sahal Enterprise waxay ardada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in mar kale gudaha dalka ay ku qabanayso imtixaanka yooska ood ku helayso jaamacad Turkiya oo waliba qiimo jaban. Shirkadda Sahal Enterprise waxay sanadkan samaysay qiimo dhimis xooggan oo ay u sameynaysaa ardada Soomaaliyeed, waxaana arday kasta oo ku guuleystay imtixaanka yooska la siinayaa qiimo dhimis 80%. Ardaydii horey u helay fursadaha waxbarasho ee Turkiga kuwaas ay u fududeysay shirkadda Sahal Enterprise ayaa ku naaloonaya waxbarasho iyo deegaan ay diyaarisay isla shirkadda Sahal Enterprise. haddii aad tabanaysid cid ka caawisa imaanshaha dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Tokat waxaa jira shirkad aad u caan baxday oo la yiraahdo Sahal Enterprise oo aad ugu caansan caawinta walaalaha Soomaaliyeed inay ka caawiso imaanshaha dalka Turkiga. waxaan filayaa qof Soomaaliyeed oo maanta waddanka jooga waanan garanayn Sahal Enterprise inuu jirin. ardada Soomaaliyeed ee hadda dhigata dugsiga sare ilaa form 4 ka baxay waxaan ugu baaqayaa jaamacadda Tokat Gazi Osman Basha University inay hayso faculty badan inay ku sahli karto shirkadda Sahal Enterprise qiimo macquul gal ah kuna soo kaxaynayso ama ku fududeynayso fiisaha iyo wax walba lagaga baahan yahay jaamacadda iyo dalku galka. Adeegga ay bixinayso shirkadda Sahal Enterprise waxaa ka mid ah adeeg waxbarasho, adeeg caafimaad, adeeg dhoofin iyo soo dejin, adeeg la talin ganacsi iyo adeeg diyaaradeed. Imtixaanka yooska wuxuu ka socdaa haatan dhammaan xarumaha shirkadda Sahal Enterprise ay ku leedahay magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Garowe, Gaalkacyo iyo Boosaaso. Isdiiwaangelintu waxay ku eg tahay 22 November 2019. ka mid noqo dadka galaya imtixaanka yooska ee jaamacadaha Turkiga oo hel qiimo dhimis iyo goobo ardaydu degaan oo ku yaala Turkiga. Waxaa socota haatan isdiiwaangelinta ayaan laga buuxin waxayna ku eg tahay 22 November 2019. wixii faahfaahin dheeriya kala xiriir lambarada ku qoran shaashada. gaaro hadda gaar shirkadda Sahal Enterprise.